annaga wadda noo furantay wadda aan madaxweynaha ugu tagnay waa la hadalnay ballan baan lahayn dad baan xiriirinayoo noo dhaxeeyay xiriirkii wuu naga go'ay annaga bartii baan ka miisnay kurbadii maxay ahayto inaan ku banaanbaxno dawladdeena sharafta lana waa weli waa ka cagajiidaynaa annaga wadda noo furantay wadda aan madaxweynaha ugu tagnay waa la hadalnay ballan baan lahayn dad baan xiriirinayoo noo dhaxeeyay xiriirkii wuu naga go'ay annaga bartii baan ka miisnay kurbadii maxay ahayto inaan ku banaanbaxno dawladdeena sharafta lana waa weli waa ka cagajiidaynaa marka waxaan ka codsanaynaa dawladdeena sharafta badan iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud in caruurtii culayska jira waa la qaybsanaynaa dawladda wixii aan la qaybsan karno shacabkeedii anna inay noo soo bandhigaan kolleeba inuu culays jira waa xaqiiqo dad waaweyn baan nahay wax fahmaya laakiin culayska jira waa inuu noo soo bandhigo madaxweynuhu aan la kaashano maxay ahayto annaguna adduunka hadal madaxweyne ka soo baxay adduunka wax walbuu naga yeelaya annagu hadda haddaan hadalno waa tuugaa naloo yaqaanaa marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaheena sharafta leh waddadii aan shala u soo marnay inuu noo fududeeyo inaan waddadii u soo marno inaan akhbaar degdega helno intaanaan xargo kale isku xirxiran kolleyba dad nool baan nahay dawladdu inay nala hadasho codsi intaasaan dirsanaynaa wax kale oo dhibaato aan haysto ilmahaasayn male wax kale oo dawladdeena sharafta badan ka tabanayna male madaxweynahaygu ha guulaysto awlaadeediina ilaahay ha noo soo aruuriyo ilmahayga xitaa madaxweynuhu lacag baan bixiyo uu yiri taleefanaa la siinayaa buu yiri lama siin waaba ka dareenba taleefanadii baa loo diiday way bukaan culaysyo badan baa jira hadda waxaan rabnaa madaxweyne dad wax dhalaan nahay nimankan madaxtooyo fadhiyo madaxweynuhu u horeeyay la tariya ilma kama jiraan inaysan naga xanaajin dawladdu waa shacabe dhaxayntiina loo dhaxeeyana ay xoogaa gaabis nooga yimid culaysyo badan oon dhagahayaga ku soo dhacayana aan u adkaysan weynay oon ahayn waalidiin annagu banaanbax ma wadno cid aan aqrabaynayna male laakiin dawladdeeda ayaan baaq u jeedinaynaa caalamiin maanta waxaan halkaan isugu nimid inaan ka hadalno ballantii madaxweynuhu nala galay madaxweynuhu ballan buu noo qabtay ballantii mahad ha ka gaarto waan sugaynay ballantiina waan dhaafnay maanta halkaan waxaan isugu nimid inaan madaxweynuhu warkayagu gaaro maadaama madaxweynaha iyo annaga naloo dhaxeeyey dhaxayntii naloo dhaxeeyana ay xoogaa gaabis nooga yimid culaysyo badan oon dhagahayaga ku soo dhacayana aan u adkaysan weynay oon ahayn waalidiin annagu banaanbax ma wadno cid aan aqrabaynayna male laakiin dawladdeeda ayaan baaq u jeedinaynaa madaxweynuhu ugu sarreeyo ra'iisul wasaaruhu ku xiga gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan waxaan meesha halkaan baaqa maanta uga jeedinaynaa waa dawladdeena waxaan ka codsanaynaa dhallinyaradii Eritrea oo dhibaato badan oo ka soo yeerayso muddo badanna waddanka ku xayirnayd maanta waxaan ka rabnaa madaxweyne ballantii aad noo dhigtay waa baaqatay waan ku sugnay 4 bilood bay maraysaa waalid wax dhalay baan nahay madaxweyne adoo aad iyo aad u sharaf badan oo u mahadsan waxaan ka rabnaa war degdeg ah oo ilmahaas dhallinyaradaas wixii ku soo kordhay culays hadduu ku soo kordhana madaxweyne nala wadaag haddii aad keenaysid hadda ballantii aad adigu noo oofinayso sida shala ballanta nooga qaadana wali waan ku sugaynaa noo soo jawaab sidaas ayaan maanta idaacadda ugu yeernay waa dhaleeceena ma wadno dawladdeennana waan garab taaganahay aad iyo aad baan madaxweyne u sharafsan tahay awalna oo ahayd madaxweynahayagii baad ahayd maantana sidii baan ku garab taaganahay laakiin annaga dhibaataan haysato hooyo wax dhashay baan nahay ilmahayaguna muddo bay meeshaasi ku ku dhibaataysan yihiin isbitaallada yaalaan aad baa warar badan noo soo garaya oo meeshaan aanan ku soo koobi karinin laakiin waxaan rabnaa inaad nala hadasho madaxweyne iyo wax alla wixii ilmahaas maaragtay arrimahooda ka hadli kara oo nadanaynahay waalid baan nahay inaad nadanaysaan intaasaan maanta meeshaan ku haynan wiilkayga aniga dhowr bilood inoma soo hadlin geeriyo nololna ma hayo labana walba askari iga dhimatay waa kii u dambeeyay madaxweyne waa inaad warkeenna qaymaysaa ilmaha Eritreada daasan oo rafaadsan oo isbitaalada ku jira madaxweyne ballan baa naga qaaday ballantii waxaad nooga qaaday inaad ilmihii noo keenaysid qalbigaad noo qaboojisay sharaf baad lahayd waa kuu ducaynay haddana waa kuu ducaynaynaa inaad ilmahaas noo keentid madaxweyneow adaa dalka ka ah maanta madaxweyne mideeda kaleeto ilmihii ma waxay noqdeen igu masawir meeshii baan tegay ilmihii waa soo aragtay madaxweyne ilaahay ka baq alla ka baq nafta ku galiyay rag baad la kulantay annakana hooyooyin ooyahayaan nahay waa ilmahay waa aragtay inay isbitaalada yaaleen oo aqbaar baan la helnay lagu soo daadguraynayo isbitaalada Eritreada oo cunto haysan oo daawo haysan oo dhar haysan oo dhogor haysan oo indhihii dhaceen oo qaar waa shay madaxweyne aabbaataa waxbaad dhashay cabashadeennaas waa inaad maanta qaymaysaa
intaasna waa Soomaali weyn oo halka dhooban oo ilmahoodii maqan yihiin hooyooyin oo ay hayaan nahay ilaahayna ana garabkaaga ha galo ilaahay waa ku ducaynaynaa hadda ilmahaas noo keentid madaxweynow yaa markii horena waa ku ducaynay haddana waa ku ducaynaynaa madaxweynaheennii baa tahay waa inaad geed dheer iyo geed gaamad u kortaa madaxweyne haddaadan ilmihii aadan keenin dabadaad aaday intaasaan ku sugaynay waxaan lahayn madaxweynaheennii waa noo maqan yahay gutumi isku soo xirxirayaa dayaaraduu daabulayaa ilmihii buu noo keenayaa kabacdi ma harsano oo ma hoyano oo cunto ma cunno halkaasaa baroorteena caddahay yaa kabacdina waa naga aamustay maxaad nooga aamusay miyaadan ahayn madaxweyne Soomaaliyeed oo hooyooyin aadan ballan ka qaaday oo rag baad ballan ka qaaday madaxweyne mideeda kale waa ka codsanaya codsi madaxweyne ilmahaas ka soo jawaab ilmahaas geeriyo nolol ma hayno ka soo jawaab assalaamu calaykum waraxmatullahi annaga wadda noo furantay wadda aan madaxweynaha ugu tagnay waa la hadalnay ballan baan lahayn dad baan xiriirinayoo noo dhaxeeyay xiriirkii wuu naga go'ay annaga bartii baan ka miisnay kurbadii maxay ahayto inaan ku banaabaxno dawladdeena sharafta lana waa weli waa ka cagajiidaynaa annaga wadda noo furantay wadda aan madaxweynaha ugu tagnay waa la hadalnay ballan baan lahayn dad baan xiriirinayoo noo dhaxeeyay xiriirkii wuu naga go'ay annaga bartii baan ka miisnay kurbadii maxay ahayto inaan ku banaabaxno dawladdeena sharafta lana waa weli waa ka cagajiidaynaa marka waxaan ka codsanaynaa dawladdeena sharafta badan iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud in caruurtii culayska jira waa la qaybsanaynaa dawladda wixii aan la qaybsan karno shacabkeedii anna inay noo soo bandhigaan kollayba inuu culays jira waa xaqiiqo dad waaweyn baan nahay wax fahmaya laakiin culayska jira waa inuu noo soo bandhigo madaxweynuhu aan la kaashano maxay ahayto annaguna adduunka hadal madaxweyne ka soo baxay adduunka wax walbuu naga yeelaya annagu hadda haddaan hadalno waa tuugaana loo yaqaanaa marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaheena sharafta leh waddadii aan shala u soo marnay inuu noo fududeeyo inaan waddadii u soo marno inaan akhbaar degdega helno intaanaan xargo kale isku xirxiran kolleyba dad nool baan nahay dawladdu inay nala hadasho codsi intaasaan dirsanaynaa wax kale oo dhibaato aan haysto ilmahaas ayn male wax kale oo dawladdeena sharafta badan ka tabanayna male madaxweynahaygu ha guulaysto awlaadeediina ilaahay ha noo soo aruuriyo ilmahayga xitaa madaxweynuhu lacag baan bixiyo uu yiri taleefanaa la siinayaa buu yiri lama siin waaba ka dareenba taleefanadii baa loo diiday way bukaan culaysyo badan baa jira hadda waxaan rabnaa madaxweyne dad wax dhalaan nahay nimankan madaxtooyo fadhiyo madaxweynuhu u horeeyay elitariya ilma kama jiraan inaysan naga xanaajin dawladdu waa shacabe dhaxayntiina loo dhaxeeyana ay xoogaa gaabis nooga yimid culaysyo badan oon dhagahayga ku soo dhacayana aan u adkaysan weynay oon ahayn waalidiin annagu banaanbax ma wadno cid aan aqrabaynayno male laakiin dawladdeeda ayaan baaq u jeedinaynaa caalamiin maanta waxaan halkaan isugu nimid inaan ka hadalno ballantii madaxweynuhu nala galay madaxweynuhu ballan buu noo qabtay ballantii mahad ha ka gaarto waan sugaynay ballantiina waan dhaafnay maanta halkaan waxaan isugu nimid inaan madaxweynuhu warkayagu gaaro maadaama madaxweynaha iyo annaga naloo dhaxeeyey dhaxayntii naloo dhaxeeyana ay xoogaa gaabis nooga yimid culaysyo badan oon dhagahayga ku soo dhacayana aan u adkaysan weynay oon ahayn waalidiin annagu banaanbax ma wadno cid aan aqrabaynayno male laakiin dawladdeeda ayaan baaq u jeedinaynaa madaxweynuhu ugu sarreeyo ra'iisul wasaaruhu ku xiga gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan waxaan meesha halkaan baaqa maanta uga jeedinaynaa waa dawladdeena waxaan ka codsanaynaa dhallinyaradii Eritrea oo dhibaato badan oo ka soo yeerayso muddo badanna waddanka ku xayirnayd maanta waxaan ka rabnaa madaxweyne ballantii aad noo dhigtay waa baaqatay waan ku sugnay 4 bilood bay maraysaa de waalid wax dhalay baan nahay madaxweyne adoo aad iyo aad u sharaf badan oo u mahadsan waxaan ka rabnaa war degdeg ah oo ilmahaas dhallinyaradaas wixii ku soo kordhay culays hadduu ku soo kordhana madaxweyne nala wadaag haddii aad keenaysid hadda ballantii aad adigu noo oofinayso sida shala ballanta nooga qaadana wali waan ku sugaynaa noo soo jawaab sidaas ayaan maanta idaacadda ugu yeernay waa dhaleeceena ma wadno dawladdeennana waan garab taaganahay aad iyo aad baan madaxweyne u sharafsan tahay awalna oo ahayd madaxweynahayagii baad ahayd maantana sidii baan ku garab taaganahay laakiin anaga dhibaataan haysata hooyo wax dhashay baan nahay ilmahayaguna muddo bay meeshaas ku ku dhibaataysan yihiin isbitaalada yaalaan aad baa warar badan noo soo garaya oo meeshaan aanan ku soo koobi karinin laakiin waxaan rabnaa inaad nala hadasho madaxweyne iyo wax alla wixii ilmahaas maaragtay arrimahooda ka hadli kara oo nadanaynahay waalid baan nahay inaad nadanaysaan intaasaan maanta meeshaan ku haynan wiilkayga aniga dhowr bilood noloma soo hadlin geeriyo nololna ma hayo labana walba askari iga dhimatay waa kii u dambeeyay madaxweyne
waa inaad warkeenna qaymaysaa ilmaha eliteriyada daasan oo rafaadsan oo isbitaallada ku jira madaxweyne ballan baad naga qaaday ballantii waxaad nooga qaaday inaad ilmihii noo keenaysid qalbigaad noo qabooshisay sharaf baad lahayd waa kuu ducaynay haddana waa kuu ducaynaynaa inaad ilmahaas noo keentid madaxweyneow adaa dalka ka ah maantay madaxweyne mideeda kaleeto ilmihiima waxay noqdeen igu masawir meeshii baan tegayey ilmihii waa soo aragtay madaxweyne ilaahay ka baq alla ka baq nafta ku geliyey rag baad la kulantay annakana hooyooyin ooyahayaan nahay waa ilmahay waa aragtay inay isbitaallada yaaleen oo aqbaar baan la helnay lagu soo daadguraynahayo isbitaallada eliteriyada oo cunto haysan oo daawo haysan oo dhar haysan oo dhogor haysan oo indhihii dhaceen oo qaar waa shay madaxweyne aabbaataa waxbaad dhashay cabashadeennaas waa inaad maanta qaymaysaa intaasna waa soomaali weyn oo halkaa dhooman oo ilmahoodii maqan yihiin hooyooyin ooy hayaan nahay ilaahayna aadna garabkaaga ha galo ilaahay waa kuu ducaynaynaa haddaa ilmahaas noo keentid madaxweyneow yaa markii horena waa kuu ducaynay haddana waa kuu ducaynaynaa madaxweynaheennii baa tahay waa inaad geed dheer iyo geed gaamad u kortaa madaxweyne haddaadan ilmihii aadan keenin dabaddaad aaday intaasaan ku sugaynay waxaan lahayn madaxweynaheennii waa noo maqan yahay gutumii isku soo xirxirayaa dayaaraduu daabulayaa ilmihii buu noo keenayaa kabacdi ma harsanno oo ma hoyano oo cunto ma cunno halkaasaa baroorteenna caddahay yaa kabacdina waa naga aamustay maxaad nooga aamusay miyaadan ahayn madaxweyne soomaaliyeed oo hooyooyin aadan ballan ka qaaday oo rag baad ballan ka qaaday madaxweyne mideeda kale waa kaa codsanaya codsi madaxweyneow ilmahaas ka soo jawaab ilmahaas geeriyo nolol ma hayno ka soo jawaab assalaamu calaykum waraxmatullahi